waayahay waana wanaagsan halka aad nagala socotaan waa Soomaali American TV haddaba maanta waxaanu inahaynaa anagii Cali barnaamij cusub oo ah dhaqanka Cali maanta barnaamij dhaqanka ku hadlayna waa dhaqankee marka dhaqanku waa kii guurka guurka lamaanaha Soomaalida kii kii hore iyo ka maanta jira shilba jil ka daran bal waxaanu dib ugu celinaynaa tii hore tadambana uu soo galeynaa horta de kulay isbabarnig waxaanu ka hadlaynaa xilligeeni xilliyadu jiilasho kala duwan marka inagu dhalinyarada ahayn processkii la mari jiray dhaqanka guurka wuxuu ahaa kii odayaashii inaga horeeyay ay bilaabeen wasaas marka dhaqan isu eg gobolada oo meel loo maro leh buu ahaa wadu lahaa ayuu ahaa marka ugu horeysa gabadh asluub leh oo gurigeeda laga soo doono beehid ayuu ahaa gurigeeda kama dhaqaaqi jiray ma ahayn mid suuqa laga mehersado ama lala baxo ama lala sheekaysto wasaas dabeetana processkaas inanku odayaashiisu la socodsiin jiray gabadha waa la soo dooni jiray waxa la oran jiray waa loo soo geed fadhiistay ilaa reemiga Soomaalidu wax iska ahayn reemiga geed baa la soo fadhiisanayaa labadii kooxood labadii reer basarkaya gabadhi baa la isweydiisanaya si asluub leh loo bixinaya waxa jirta wax la yiraahdo yarad iyo gabaati iyo sooriyo magacyada jiray gabadha xitaa marka la guursado ay dudo gurigooda tagto xoolaha la soo siiyo dhibaad baa la oran jiray iyana waa gooni ninka aroosanaya waxba hayn dooni in waxa la oran jiray kaalo wal kalmeyn jiray aduu laba riyaad baa siinaysa anuu shan baan siinaya ninka kale afar buu siinaya xoolahaas waxba la isku dardaray ninkaas asaas lagu dhisaya guurkaas ninka guursanaya iyo ninka tacabiraya dhoofaya Soomaalidu dhaqaale u ururin jireen labadaasba yaasin uu guursanaya ama uu guursaday aynu kaalmeyno adoo waxba weydiisan ayaa la kaalmeyn jiray waa nin guri cusub dhisaya ninka kale waxa la oran jiray ninkan uu tacabirayaayo tahriibi ma jirin marka wuxuu fuulay dhulkaas uu rabay inuu gale adduunka soo aadaya nin wala wuxuu hayo ayuu siin jiray imanka ka guursada haddii imanka gabadh caawa guursada line baa lagu soo galayaa shaxaad arkeen dada guursada adiga miskiinka hayo jabay baa siin jiray hadda tahriibaysidna ama aad sidahay dhoofna iyana waa lagu imanaya guriga walaal de visa heshay noodib walabadii la kaalmeyn jiray dhaqankaas horta waa ka wasaas imanka waxa cusub waxa weeye gabadh baan 4 sanadood wada soconay ay koonay kala dhirgay maxaa soo kala hadhay marka waxba guurkaas ka rabtaan muxuu yahay 4 sano uu socotay 4 sano canuga dhashay 4 jir buu noqon lahaa guurku wuxuu ku wanaagsan yahay gabadha iyo wiilku gurigu waa cusub yahay Soomaa waa cusub yahay inay iyagu isku cusub yihiin تقول حسينيان سي أدك وصوب شو قبلاس شعائلكو ومرك جورج لا قالوا ما ها مرك بنان كيسة مخايدها لا شهر بنانك وبنت الله شاء الله سوق قبته واسمه وادبت وحقيقة مرك شعائلكو مرك ساب سبراني كو هدي قبل أكو قرر يسوع تبع عضها وردن ويصدح سنوات كل سعتي كو قرر ما يكون احترام صدق أنا أتولى وكيل never respected بين بعض السوشيال لكن هدي أيضا صدح سنة يوحى سقون وجرو عصبي هاي متبكى كلو احترامية أنت احترامي سان المهم هو الرياض لا نيبا كتب له دقيقة بندقط المهم مركو دشنا شعائلكم مركز سبلامية سبرتة شعائلك صنادو شيء لا شعلدي يدقالدي يشعائلك كوروردي يقف بقف كل حق دورو مركز سبلامس شعالك وكاس لكن كوا كله شعال بينا وتريارسا أو أي جوري لا سوي منايا تلفون إنتان المي هر دلامبا أي دجال كبلامية هنا بناك اللي يسكسود لي بناك اللي وصل كلا واحد جورستي قبل قرنيسا تلفونك قفك الله ليش قبل قرنيسا عندك كروسو هذا قبل قرنيسا أنت دغال مسخوس كتيرس قبل قرنيسا داد بحد ماشى عادي يسوي رقم سامبا أوريك براتي معي أورنا قالتك بنتك ورثة أنا نوك توكل عنها روح بركب بين بكسرات تاسواتها أساس قلب بلاسي وح وأمهم سجور كحوها أنشح يا أسلوبت جور كل مرة قبله إنه هذا الكيدو إنه جابين هاي هذا الجابنا إن حشود كودو وبدين هاي أستورانت درك برجر الحرين شري إما كم ماسك الحدو إنك أوياشن
xilliyadoodii dumarku ilaa intaasay garbasaarka ayay ku soo qaban jireen halkaas marin jireen sanka sida nimanka maaska loo gashado ay ahayd waxa jira degmooyinka ama tuulooyinka ceelasha leh dumarkuna xilli bay ceelka tagi jireen ragguna xilli bay tagi jireen waa la kala leexin jiray inaan la is arag haddana waa isweydayaan ya ceelka dushiisa waa la raggi dumar la dushiisa waxa kaloo ceeb ahayd in ninka ragii ama gabadhu laba ama isfuray ha noqdaan isqabee asraartu waa sirta guriga in banaanka la geeyo ama gabadh hoo sheegto ama saaxiibada ama saaxiibkeed cidna u sheegayso hadda TV-ga la soo fariisay TikTok ay ka sheegayso walaal waxa weeyaan ninkaygii yaa way istilxalaan istilay imka rag badan oo doonay inay xaasaskooda furaan ayaa waxay u baqaan armay TikTok soo fariisay tirada ninkii aan furnay ceebihiisa waa kuwa wali ka sheekeynaya sanadkan aan ku jirno markaan eego aanu 10 sano u dambeeyay dumarkiisa Soomaalidu 80% way waasheen way ka sii daayeen ragum baa iskala hadlayo gabadh baan jecel gabadh baan telefoon u diray waa gabadh bir hor sii disay ka baxday hawada soo tamaad garan markaas haddii la eego social media sida Soomaalidu ugu jirto waalida dhabta ah iyo anshaxumada hablihii Soomaaliyeed ay u bareereen budda iska dheena soo tii wallahi timirka qabay walla deemkan ma garanayo hal shay oo dhahdo alla ila arrinka waa laga xishooday ma jirto meel aan ka warramaan ma jirto ay shakhsiyaad subxaan cayd ana ka caay badan waalidkii wala caynay qabiilkii wala caynay culimadii wala soo dhigaya waasiyadii miyaad aragtay laba gabdhood oo ismaagayo oo iyagu wixii doonaya ka dhaxayaan oranaysa ugaaskiina waa sida ay sida anu garan waayo ugaaska waxa keenay sheekh hebel oo aad reer macalin wax isnatii waa sheekh caana oo Soomaalida ummadda masaajidka ummadda u dhaxeeya diintii faafinay ta kala sheekh qoladii gabadhan qoleeda ay raadinaysaa anaga sheekhaga wasa yasiin horta halkaas la isla maraya guriyo dhaqmaya ma jirto halkan waxaan joognaa imika studio ma laba halkan isku mehersanaya moolka 24 intuu noo jira wayna dhooyay was friend intii sii socday ilaa intii sii socday muranka bla cidimka aad u tahniyadin karaysid oo social media oran karaysid ilaahay guri jira idin ka dhigo reerkiina anigu shan maalmood baan ka dahay reer aan soo taanidii harunta gabadhii soo wacdo ka saar weystii la ninki waa inta haddii mid aad u tahniyadaysay xitaa aad kulantaan oo tiraahdo gabadhi maxay ku dhashay gabadhi ka wareer wuxuu ku leeyahay tii waagi misaati gabadhi berigi daan xafladda halka soo jirtay wariga mar hore furo ku kala tagriba xasuuq haysan hadda akhlaaqdii dadka ee Soomaalida intii gudaha joogtay Soomaaliya iyo intii dibadda u soo baxday baa ugu ceeb badan waa balan waxay heleen qol dawladdu ay siisay oo aanu Soomaaliya ku haysan wada aan cidna waxa ka quseen kirada laga bixiyo wuxuu helay telefoon aanu Soomaaliya isticmaali jirin qofkaasi wuxuu helay xurriyad wuxuu rabo ku sheegay cid oran karaysa kaadi iyo ka joog ma jirto aw la qoys buu ka tirsanaa xagan aabihii xagan hooyadii wala qaban kari maxay Soomaaliya marka wada furan bas ka noqotay aydi qolka soo xidhanay waa sii deynaya ama raalli ah ma ahaan telefoonka da saatir jiray ay adun baa isdhaafnay mid kale si loo kala ay badan yahay ayaa media dadku kala badan yahay waxa ku raay caan baanahay caan ka san bagaran waayaan akhlaaqda marka laga hadlayo marka gabadheena way luntay rag marka leeyahay Moroccan aadan ma ndood ma ogaaday xaq buu leeyahay show way wareereen gurka ku wareereen waxa sun bay dhageysteenoo waxay jiraan gabdhihii oo dhan rag waa baqasi galada waxsa warda loo geeyay gabdhaha aan ku hadlayno in yar oo akhlaaqdii lahayd oo le weelan ma shangarayno waa 30% imika wayiri wasi yaraanaya every year wasi yaraanaya hospital waayo mid walba xaslada challenge kuwa ayaaba meesha haysta meeshii balbaliyay kuwa imka qalqalnay ay tamaya sino ay ma la guursadaa hadana waay dadka waa balanbalay rag laftiisu gabadh cibaadaysan soo tukanayso masaajid ku xiran uu ka baqayaaba taa waan bislee la dhilgaray taas bila anaagta marka taa sharnimada iyo dagaalka wuxuu yaqaan inta qurux baan taa waalana markaad guursatid maalin walba saddex soo furtay oo salaamaysa ka hormarsan
marka waxaan soo gabadhay maamul لا ninka ku salaamaya muxuu yahay madar bir oran kii waagi aan kala tagnay weeyaan oo wasakh waa ismehersanay laakiin isma naar telefoon baan isku guursanay beri baa la ciidahay wala soo baabay reer Soomaaliyeed oo soo tirisay dadka marka la eego qurbaha u soo tahriibka ku yimi qurbaha laftiisa kala taado ku visa ku soo dhoofay iyo kuwa tahriibtu tahriibtu ku yimi haddana dalalkii ay galeen basi kala waalan ayaa si kala waalan Soomaalida ugu waalan ee ugu cayda badan ee ugu dhibka badan waa kuwa Jarmalka jooga no Jarmalka miyaa la mudaatalo amir badal ku dhufta wadida maxay in yarba miir qabta wada waliin kuwa miirka qay markaa kan kuwa waalan ee ugu cayda badan ay ka sii baxeen Ingiriiska iyo Yurub taa kala galaan wax soo waalanina imika raggii hore ee berigii dawladdu ay jirtay ee Jarmalka tagi jiray way ka xishoodaan ay ku yiraahdaan Germany ayaan ku noolahay kuwan aad moodaysaa moogtay in kaarta qaba kuwan bilada anu maradu qofkii Jarmalka kay waa ka carraan marka uu ku bedelay reer UK baan ahaa هو حق سكة قال يا شرم لكن دافعوا يمكن أي تمية ياسينو عيد كبح حيسا أصلي تكون إسلام بماها مرة خاركون عيالك كهوس أو يا وعيالك ما قد يسيبه قدم يسيب وعشان ما يسيب ورنا مسا هاوش بيسيب ولا تابع تأويري صو قبل يرمى أفر بيدش تأوير عيال وعيال وكأباء ويحبي أمسينسه ورنا خضر ولا غفر يساعدوا ورنا عبدي وفريس حقنا وحكا كورمسا حسبيدا Soomaaliya iyo marka qaar الاتحاد يا ساميو ciyaalkeedina isku khaldaysa balaga ma kala garanayso marka halkan xisbiyo iyo adduunyo iyo waxa u yaal markaas waxay soo caayayaan laba loo kala baxaya markaas labadaas caaydo waxay soconaysaa bil dadka dhigsanay may wali caayda wala Soomaalidu waa wala markaas mid walba oo halka ka hadlaysa waa macruuf والله يقنا الصباح عيبه وتماده ماشي انا مد كوا ku jirto oo aad isla oo gabadhan ilaahay soo haday wax kala garan maayo oo dhowr jeer duceeyay afkeeda waxa ka baxaya markii dib waxaan siri tan baa ciido ma dhalno waa iska aloosan duuy dhaaft ila wax ka shatay halay inta markaan arkay ay maalin waxaan arkay iyadoo ku soo dhawaada aabahay waa kane inna lillahi oday dharkii dhaqanka gashan oo aan reero TikTok iyo reero telefoon ba ahayn oo mala adduun ba warahayn oo gabadh isku dhijinaysa leedahay waa aba ilma iga timi inna lillahi wa inna taab khasaar wadaastii waxa lama socdo okay sheekadan gabdhaha qura ma aha wiilasha ayaa ku jira ayaa ka sii badan inna lillahi wiilashu caydii dumarka laban laabka iyaga ay xunba inna lillahi wa inna maragi dumarka xitaa wala aytaan baa warimka Jarmalka bir hore maxaa loo tagi jiray ya dawa loo tagi jiray caafimaad ya caafimaad dawa liba loo tagay bilki ma iska doonaysa hadda dadka jooga daraadood waa ku caynayaan fanaan baa meelaha ka tagay xuseen baa u soo hees kuwaasoo muddo walba loo heesaa intay soo fadhiistaan baa carar habeen dambe qabo xaflad carar hadaan ninta reer hebel qabyaalad مساق متكلم صو هذا أنا كنت دفاعنا إمو عفيا كودا قفكو يابا يا مركا وردتكم والاني وماشي آتم حيث مركا دتكني دترت جور ربما معها نو والده مدويا به لقى كان دتك مسكح هذا الجو ذكر يمكن دتك إنكو هذا نتشر من أبدا دتك الصومالي ده شو كتير هالكن عايدة كل مسكح حديد حدي عفمات لما رينها وولي وحبذن بلد أيام لنسينها قيبت والده اللي جينا ولو عرس هي وايو أنا ونن واحد شرتي 2006 ياسيرو نين سوماليا أو كين سوريا أي يقول يريني وان عصبها يو ويجبان شو مال شقو يتما وحن شقاك هذا هي أنا ما خدت كغدني هي تبيتنا نمن سكير سقادني وان حسسنا أي أنا قري أدرس كيو تلفون هي لا حريب أكون هي يكون نقوم ما نودي دقن بلا nimankii uu tagay caafimaad baa loo diray dhakhtarkii ayin baa ku yiri xagga maskaxdaada oo nin wala baatay nin wala baatay waliba last 5 years wad waa leed buuri cudurka walida laga xiray wax uu igala ma aha 5 sanadood wad waa leed bil kadib ay ma ninkii si kadis soo arin qoladii berigii meed u shaqeysan ma ku yiri wuxuu dhimay warqada soo siiyo ma shaqeyn kartid waayo ma roo ka dhirgibay xagga ilaa wuxuu igu yiri waxay igu yiraahdeen wad waalanta هذا نكاسي دركيسي وقبا سفع مدلها لا واكن شقة دونكا سومالي والد نك دك دكتكليه ويقان مركا كان حد لنا الشغل الدنيا ايا ابو والد لغا هلي كو قيلني حيقسم محمد
weelida ugu waalan baa laga heli lahaa aan ka soo noqon weliba gabdhaha mid baa ku jirtay yaasiino iyadoo si u caytamaysa afka inta xunba ka sii daysay waxaan ma jidin ka qalalay waxa ugu war dambeysay biyo way dhacday inna lillahi wa life baa socda life baa socda haye ku socod leeyahay iyaguna ma biyaal ciyaal iyo ma xeen biyaal ugu biyaalkeeda waa biyo ka afka loo geliyay ay bay ku dhiman lahayd haye marka horta de guurki waa ka dagaalka xitaa wasbalansadaan waa ka hebelay soo bax halkaas uu ka keen nimankeeduna wala soo dharka waxayaan ma iska celin naagta waxa waalida ka war Sweden ku arkamayso oo Norway ku arkamayso oo UK ku arkamayso oo Belgium ku arkamayso Holland waa leyd Holland ku arkamayso waa chairman waxaas mid gabadh la daba galayso si socota aristaag hadaa baqeen aristaag wallahi baan u tiramay oo tii kale isleedahay waxaan shidadeeda yaa lagu xulaa qof haduu dhiiqa miran yahay oo lama dagaalami karo iska car gaaladii oo dhan baa yaaban naagta life kala daba joogta fulay baa tabaarus marka dhaqankaasi dhaqan wadii maanta ka cararay qurbaha lagu hayo weeye waxa ka sii daran kuwa Soomaaliya jooga aan weliba meel u dhoofin oo iyagu halkan ku ilbaxayna barka TikTokas ya marka TikTok talent nibo waxba la tagay adduunka de waxba la tagaa nibo aqoontiisu la tagaa isruxid iyo roob lagu qubeysto waan garanin oo gabdha ah oo jirkooda la muujinayo oo marka qaarkood gabadha background-ka xagga dambe waa cariish waa tuulo yar صندقنا وقول بدر قاركودنا صندقنا وصندقات ميرن قاركودنا دارده ay ku jirtaayo waxa dareemaysa waxa arkaysaa hadii ku soo marto markay istiraahdo erey dhaba ama isruxba xagga dambe eeysa albaabka in la soo furay abeeskiisa ama aabaheeda ama hooyadeed ama reerka u shaqeynaysa cidi guriga iska lahay ayaa soo socota guriga ku dhaanisay chance ka si ka faa'iideysanaysa ogaga yar bisla inta weelka calis ka gaarsi bilada waa waxa soo dhali waa dhaqanka lumay ee kii islaamnimada iyo kii Soomaalinimada ka lumay gabadh hadaarada hadlaysa tuwan faros wajigeeda aan qareen waxba hore laba guursan jirinba dadka hadal badan baa la oran jiray waxa la raadin jiray naag edeb leh oo inta hadlaysi ku sugaysa oo markuu dhamaysto hadalkeedu gaaban yahay hoos buu dhigi jiray hadalka okay guriga marka timaadid gabadha hadalkeedu waa maqalba ma fiish maqal inta ninka la sheekaysanaysa weena tiraada xaaski miyay maqan tahay xaaski way joogtaa hoos buu hadlay waa tiraada gabadha akhlaaq badan laakiin mid ninkeeda xitaa doo yeersi markis mid duryamaysa haddii guriga ay joogto ninka kadeed baa haysta warkii baa soo galay raalli ahaada iyadoo ku jirta dagaal iyadoo xitaa waa sheegaysa marka waxa soo dhan waa dhaqan xumo meesha ka soo ma garanayo meesha ka soo noqonaysa intii horta dalalkii ay ku dhaceen dagaaladii sokeeye qaar baan dib u eegay yaasino Soomaalida horta soo furtay kulli waxaan eegay Afghanistan diyaaradda ay ka tagi jirtay ma garanaysaa caasimadooda Kabul ee diyaaradda qabsan jiray ee ka daadan jiray qaxootigii wala soo qaaday haye iminka 100 ilaa 200 qof oo kamid ah waxa la keenay Brooklyn Park bal soo dejiyay la dejiyay halkan xaafadda Brooklyn Park berdhoyti masaajidka noogu yimaadeen iyagoo idinka Soomaaliya wadankan hore u joogay maxaan sameynaa gurki waa naga baabaay maxaan talaabeen ma gurki ma sidee u noolaana sidee dawladda xitaa waxay sijaayadaan ku tukano iyo qiblada meesha loo tukanayo ma garanayno aniga fikris ma naqaan waan eegay mid walba Israa'iil buu ka tugtugsanayaa sanadkii hore wajacayl ayuu wataa xasa jacayl la yiraahdo isla gaboobeen laba dhalinyaro oo yar ku arkimaysid Soomaalidana waa finish ya Soomaalidana waa mid la socdo arkimaysid mid la socdo wala kala dhintay anu markaa labada socotana way istagaash anu markaa diin xitaa ugu yiraahdo cali intuu islaamo gabadha ay la socoto maxaaskiba waxaan ka baqaa inuu yiraahdo tii hore ma aha waa mid kale woodiyo wartan baarka jiray xagad ka keentay mid hore ku ogeyd ayaad sayba salaamisaayo tii hore gaaban buu wataa wartana maxay tii dheer naag dheer baahdo saas leedahay gabadha walaashiina ma aha maxaa dhacay to maxay hadda waad ka wareysaa inuu aswalatii hore wallahi waa tay waaga waxa sameysay kala tagna waxay noo soo haray jacaylka horta muxuu yahay yaasin ali horta jacaylka wuxuu ka taqaanaado jacaylku wax jiro ma waa been waliga waxba jeclaatay ma waa been walla sidii waa beenba jacaylka laftiisa beena waa been waayo wuxuu been ku yahay jacaylku horta waa xukun adoo as xukumaysid naftaada ka imanaysa anu maalmaha sir gabadh aad u qurux badnayd oo gaari ka soo degtay ayaan sirniyo ma jeclaataa gabadha laftigeed ma dhex gashaa
ما تعلاتها سو اسكديسا اي بس هذا يصير وروح اسكا داف waxba xilligan ajaclaan aniga waxba ma jeclaan kartid tan yeer sago baahid waqti ay marka marda jacaylku yahay waxa xukumi karaysa imka soo ma jirto shaar dukaanada qaar inta jeclaatid ay istiraahad iibso adkayli weyd oo marka qiimihii uu ku qancin waayo aad raaysi loo sii war faraaka aniga da waxa kan ma waawudidaad dhibaatay jacaylku waa ka guriga markaad leedahay reerka soo dhisatid oo kaysatid oo halkaas saddex gashaan gabadh cunto ku karinaysa oo kula sheekaysanaysa nool guriga ku joogta waa jeclaanaysa halkaas uu jacayl ka bilaabmay way wadi ka de sheekaysanaya ee wada qosliya ee kaftamaya laakiin mid reerood waana shaqo isku lahayn ayaa iska jeclaanaya 3 sanadood iska daba joogaya ayaa iska daba joogaya ma macquul haddaad jeceshahay gabadhii waad aroos lahayd habeen kasta xagaad joogtaa maxaad qabanaysaa waxaas ma jacayl ba maalin walba waxaad maqlaysaa qaaliyay buu leeyahay qof xagee maraysaa iyo xabiib wax alla wax ka jira ma jiro wax alla li qaalidaas qaalidii xaq ku arko ma arkin way wax jira ma isaga lillaah marka jacaylka Soomaalidu jacaylada kale uu ka duwan yahay haye jacalada kale waxba kama sheegi karno oo inay xaqiiqdu u dhow yihiin baa suurtagal waa suuragal carab ha noqdaan ama kuwan kale French ha noqdaan haye laakiin Soomaalidu anaba kule waa been mid buu hadda arkay kas kule ku jecel gabadhuna been bay sheegaysaa isaguna been buu sheegay nin maalin meel aan fadhiyay telefoon buu soo dhacayo wuxuu yiri xabiibi ii waran markuu dhigay in kadib ayu hadana wuxuu yiri قالي هبلا يور مركا ماشي فدي وشنا قد بمد بك وشنا قد ما الى كوبي تون قبضود ايو ميدول بو خكلها حبيبي حبيبتي سبدلا مركا اوغو حاسكيسي او كسو علنس حتى ما مغعيدو كلا دوين هي مركا وحو دونيا تريكس باستعمال Soomaalidu khiyaamoyin jacaylku waa khiyaamo dabin iyana tuban kale la socotay iyadu xabiib leedahay wala iskhiyaameynaya guriga haduu saas ku burburaya marka khiyaam ku bilowday sheekada waxaan ku soo koobayaa dhaqankii hore wuxuu imika dhaqankii hore wuxuu taasluubtiisii wuxuu taqadarintiisii wuxuu qiimeyntiisii family ku dhex jiray family ba saystay buu ahaa family gabigiisba saas isku ah oo midaysnaa hooyi aabi adeer iyo saas guriga wala ilaalin jiray imika dadka dambe isku horsaday haddaad nin weydiisid xaaskaagu imse la dhalatay I don't know bugule karan maayo meel ka timid magaceeda kaliya yaqaan magaceeda hore waxa ay sheegtay inuu dhintay laakiin ciyaalkeeda haddaad gabadha wareysatid oo tiraahdo imsaad walaaltiin waxa ku soo koobiton kalmo yaqaan ma oga ka qaba ma oga arma meel lagu bid waagi horena haddii uu ka hor yimaado wiil seedigaaya waa ixtiraamis oo 8 jira oo u istaagis maanta uu ka hor yimaado garan maayo waa 8 years old ya uu seedigaadu ka hor yimaado garan biisba halkan ma aha leedahay de waxba dhacay mid seedigi dilay halkan waan weyn oo dhacday ma soo isagoo og oo de qiimihii baa si lumaya ninkii oo feer kala daada rasul marka xisii marka gabadhi islaayaan buxulay walaasha maxaa ka rabtaa gabadhi walaalihi baa lagu ninkan uu yaqaan ya mid baad arkaysaa gar soo dhigtayoo ka cabanaya sodohdii armeesh waa lagu baabay cali idan saysan idin garaqana waayo oo gabadha hooyad buu kule oo gabadha hooyaday bas ya hagud bay wada galeen baaris mid kale oo ay gabadha sir qaban jireen ayaad arkaysaayo wuxuu leeyahay bal reerkii wixii ka hor wuxuu kula imkan waan heshiin oo fiicanto oo madad bad dhex galay maya saantii dhashay ayaa berdhood dhimatay oo intii ay dhimatay oo ka raysanay warda cali meesha lagu baabaay ka dhaqanka halkaas inna lillahi wadamadii burburay ee qaarkood dib loo soo celiyay Asia Istimor wada la oran jiray iyo Liberia Afrikada ahayo iyo kuwa markaan ka sheekayna Afghanistanka waxa Suuriyaanki burburay dhawaanta dadkooda markaad eegtid qoysaskii yaasino wali way haystaan wali waa midaysan haye inagana da shidanka sa dhex galay hawsha soo ku dhex jiray marka TikTok horta wax lagu bishaareeyna dadka Mareykan jooga wala xidhay maaldo TikTok aan ka xiro TikTok no Mareykan dambe oo TikTok daawanaya ma jiro lacagta ka dirayaan marka TikTok-gii lagu dagaalamayay in nin walba shaqadiisa ha qabsan nin walba wax kula horeeyay soo dir lacag way way cali aad iyo aad mar labaad iyo mar saddexaad baa u mahadsantahay waa anigu Yaasiin Ducaale waxaan ka tagayaa sidaa iyo nabad geli